qorshe sanadeedkan kuguma jirin inaad goobjoog u noqon doonto Chelsea oo New Yorkta Mareykan ku xasuuqaysa kooxda Yurub loogu caal waayay ee PSG camalqadii ciribtirtay xoog weyntii Yurub sidoo kalena kuma aatashanayn inaad arki doonto Donald Trump oo Chelsea la dabaaldegaya kadib xasuuq saddex iyo waxba ah oo ay ku hanteen koob kooxeedka adduunkeena mar kale isma aad lahayn inaad sanadkan arki doonto naadigii kal ciyaareedyadii dhawaa ku dhibanaa England waa Chelsea oo noqonaysa kooxda adduunka ugu fiican mustawahana wadan doonta ilaa 2029 waxa loogu yeeray mid ahaan abaalmarin kooxeedii abid ugu qiimaha sareysay isma aynu lahayn Cole Palmer ayaa laacibka tartankan ka hoos qaadi doona Mbappe, Dembele, Harry Kane, Haaland ila Vinicius sideedabana saada inooguma jirin in Chelsea ceeb u hagoogi doonto naadigii kubad haynta difaaca halista ah iyo gool dhalintaba lagu holin waayay aan ugu dambeyn ku sheego mid kale oo aan xisaabta kugu jirin taa oo ah inaad goobjoog u noqon doontay in kooxdii soo qaaday koobka ugu darajada hooseeya tartamada kooxaha Yurub ee Conference League ay karbaashi doonto kooxdii xoog iyo xeeladba ku soo qaadatay tartanka ugu sareeya qaaradaas ee Champions League Chelsea waxay xalay dunida tustay inay koox final tahay oo haba kala daadsanaatee haddii kama dambays la isugu tago aysan cabsi aqoon taa oo sahashay inay qaybtii hore ee ciyaarta 3 gool hoggaanka ku qabato lama filaan aysan ku soo talagelin ayay ku noqotay tani PSG taa oo sababtay inuu kala daato qorshe ciyaareedkii ama game plankii ay doonayeen inay finalka ku hantaan taa oo suurtagelisay in kooxda Paris ka dhisan labo isugu aadi weydo ugu dambeynna ay sidaa ku weydo cimaamadii sanadkan oo dhan la huwinayay ee ahayd inay lamaloodiyaan yihiin taa oo docda kale Chelsea u sahashay inay xirtaan duub ay sidan doonaan 4 sano ee soo socota waa inta tartanka koobkan ee xiga la qaban doono ee duubka oo ah inay ilaa waaga ahaan doonaan kooxda ugu fiican naadiyada ciyaara kubadda cagta adduunkeena oo dhan